dhalinyaro kusoo dhawaada casharkeena koobnaad ee koorskeena Introduction to Cybersecurity. Maanta waxaan qaadan doonaa cashar practical ah waana toolka lagu magacaabo Nmap. Nmap waxa laga soo gaabiyay network mapper waana mid kamid ah toolska ugu awoodda badan ee loo isticmaalo saaxadda cybersecurity. Waxyaabaha uu ku qaban karo Nmap waxa kamid ah in lagu ogaado nooca qalabada ku jira network-ga sida inay yihiin server ama router ama computer. Sidoo kale waxa loo isticmaali karaa in lagu ogaado OS-ka ama operating system-ka lagu isticmaalayo iyo version-kooda. cashirkan wuxuu u baahan yahay inaad faham ka haysato basics-ka networking-ka. marka haddii aad networking-ka cusub tahay waxaanu barteena TikTok soo gelin doonaa eray bixinahan oo aan sharaxayno kala soco markaa. Okay, waan bilowna hadda practical-ka. ugu horeyn soo furo virtual machine-kii aan ku shubanay. soo fur kadibna username-ka soo gal password-ka geli wax yar soo baxaya. ardayda nagala socota mobilada waxay isticmaali karaan application-ka Termux. linkigiisa waxa yaala qaybta description-ka. عادي أيوة استعمال كران كوماندسكا يوم بيجلينيان واحد برنامج كلية apt install nmap وتصبحوا حاجة علامة هوسية قرنتها هي application ده حاجة application تابو سيوصل فرطة terminalka default كوي مادة هادو كوسا كيوايو واسكا عادي حتكون فانيسا اب ستوركا حانا لسو ديجيسا terminal عصب مركا waxaa soo dhan waa terminalis ka doonta ka soo xulo mid uu iskala soo deg markaan yahay wajida midkan kadib waxay bilaabaynaa inaynu soo degsano nmap sudo apt get install nmap password ku weydiinaya password-ka geli username-ka ahaa iyo haddii halkan ku xakano waxa dhacday cilad ah in ku sadigi waayo nmap ama ku geli waayo saad u xaliso waxa baan inta soo permissions ku soo dejinayo sababtoo sana waxa qoraysaa su marka uu qorto waxaad ku xisaabinaysaa password-ka marka geliso waxa ku soo baxay waxaad ku xisaabinaysaa apt install sudo marka sudo ana soo degaysaa halka aniga way digsan tahay marka waxaad ku xisaabinaysaa usermod sudo iyo username ka rabtay asii permissions-ka kadibna xataa waa reboot wax yar sug waxa restart galaya virtual machine-ka marka ku soo baxo dib ugu soo noqo terminalkii halka aan ka soo wadaynaa marka dib marka ugu soo noqo terminalkii mar labaad ku qor sudo apt get install nmap kadib ku soo degaya command-ka koowaad ee isticmaalna waxa lagu magacaabaa ping sweep waxaana lagu hubinayaa inta qalab ee soo jeeda network-ga aynu rabno inaynu eegno si fudud ping sweep wuxuu sameynayaa inuu fariimo u diro dhammaan IP address-yada aynu qorayno waxaana soo jawaabaya kaliya inta online-ka ah ee soo jawaabaysa marka xagga hoose aynu ka arkinaa inta online-ka ah marka waxaad qoraysaa nmap-sp iyo IP address-ka 192.168.1.0 marka kaliya waxaa noo soo baxaya IP address-kaas ma soo jeedaa mise waa dansan yahay haddii aan rabno inaan network denskan garayno waxaan isticmaalinaa subnet-ka oo ah 192.168.1.0/24 oo waxay noo isgaangaraynaya 256 IP address uu ka kooban yahay subnet-kaasi waxayna arki doonaa inta soo jeeda ama online-ka ah waxay noo soo baxay inay ku jiraan 6 kaliya tan 6 ayaa online ah. Okay, command-ka labaad ee baranayna waxa weeyaan waa port scanner waxuu noo sheegayaa portiska furan portiska furan si aynu eegno waxay qoraynaa portiska lambarkiisa iyo IP address-ka aynu rabno inaan ka hubino portiska furan kadib waxaa noo soo baxay xogtan dhammayska tiran leh xogtan waxa ku qoran portiska lambarkiisa iyo protocolku isticmaalayo inuu furan yahay inuu xiran yahay iyo service-ka oo uu talagalay isticmaalaya ama adeegga isticmaalaya sida email ama FTP iyo kuwaas oo dhan sidoo kale waxaa go'aansan karkana noo soo qabtay MAC address-ka device-ka command-ka saddexaad ee baranayna waxa weeyaan command-ka lagu magacaabo operating system-keena aragno operating system-ka ugu shaqaynayno si aan aragno waxaad qoraysaa sudo nmap-all capital -v scan me iyo website-ka magaciisa website-ka rabno inaan aragno waxa weeyaan nmap.org maadaama yahay website legal ah oo loogu talagalay in practical-ka lagu qaato inter taabo waxay noo soo baxaysaa dhammaan xogaha ku saabsan oo dhan inuu isticmaalay Linux inta casho u shidna ama online-ka ahaa haddii soo kala deyn midka saxaad ku darno waan ku darno website-ka Udemy waxaan qoraynaa intii lamid ah .udemy.com kadib sida xogta inta leeg ay nooga soo baxday wow yani xogahani sidooda macna kuma sameynayaan hadda laakiin waxaad u baahan tahay tools badan oo kale aad la isticmaasho markaas ayaa wax macna leh ay ku sameynayaan xasuusno wixii su'aal ay qabto naga soo weydii Telegram-keena isaguna yaala qaybta description-ka aad kuma santahay daawashada muuqaalkan fadlan ha ilaawin inaad muuqaalka like saarto channel-kana subscribe tiraahdo mahadsanid